arrin ay 5-4 qof u socoto hadaad aragto waa been waa xatooy waa wuxuuna xaq u lahayn wuxuu raadinaya wali bangi baan lacag ka soo qaadanaya kaala igala hadal miyaad maqashay ma jirto la saaxiib hebel ha cadhoode dad waynaad kelmadaha laftooda kala door bidaa xoolaha qura looma sahamiyo hadalkana waa loo sahamiya marka word kelmadaha ka soo yeer wuxuu markaan sahamiya baan halkii sayr la mariya afna kuma sadko ee waahidaha sararihiis nacam gudahaaga waa inuu ka yimaado rabitaanka wax qabasho ah gudaha waa inuu gudahaaga ka yimaado ta kale waa inaynu noqonaa shakhsi u taagan aragtida uu qabo baahidan iyo beelahadan ummadda inay la sii jirto dan guud qof ka hadla oo ummadda danteeda ka hadla waa inaad noqotaa kow waa inaynu noqonaa shakhsi aamin ah haddii la yidhaha wallaahi hebel wax u dhiiba waa waraaba hilib ku raray sumcad ahaan ma fiicna in la dhinta ta kale waa inaynu noqonaa shakhsi mas-uuliyadda loo igmaday gudanka waa inaynu noqonaa shakhsi waqtigiisa si sax u isticmaala shalay maxaan waa inaynu noqonaa shakhsi hawsha uu bilaabay dhammaystira haddaad iskuul bilowdo ood qabyo kaga tagto haddaad caafimaad bilowdo ood qabyo kaga tagto beero bilowdo qabyo kaga tagto jid bilowdo qabyo kaga tagto oo lagu bixiyo mudana qabyo ma fiicna hawsha in yar oo aad dhammaystiri karto ayuunbaa la qabtaa ta kale waa inaynu noqonnaa shakhsi hormood ah oo dahal abuur leh oo wax curiya oo wax akhriya waa inaynu noqonnaa ta kale waa inaynu noqonnaa shakhsi xaq dhowr leh ummadda waa inaad isku waddaa maxaynu nidhi mas-uuliyaddu waa diyaaradda noolkeeda samada lagu ururinayso iga deg ma noqonayso iga tag ma noqonayso kuma rabo ma noqonayso marka we have to handle together dadka waa inaynu isku haynaa aynu isku wadnaa ta kale waa inaynu noqonnaa shakhsi aragti dheer leh dhibaatadan in laga bixi karo laakiin muddo qaadanayso samirkeedii iyo dulqaadkeedii iyo xirfadeedii waa inaad la timaado ayaa lagaaga baahan yahay waxa kaloo laynooga baahan yahay waa inaynu noqonnaa shakhsi diyaar u ah aqoon kororsi rahu harta wuu ka dhex qayliyo badda hadduu rahu ka dhex qayliyo ka warrama kalluunoo ka tiro badanoo aamusan baa jirade right soma waa lagaaga badan yahay waana laga aqoon badan yahay waana laga awood badan laakiin intaadana inaad bixiso adna in dadka ka kororsanto you have to be willing waa inaad diyaar u ahaataa waxna kororso waxna dadka u kordhi tala wadaag waa inaad yeelataa ta kale waa inaynu noqonnaa shakhsi diyaar u ah aqoon kororsi waa inaynu noqonnaa shakhsi samir leh dulqaad leh in allaha maca saabiriin ilaahay waa kuwa samra macooda waa inaynu noqonnaa shakhsi ballanta oofiya oo saacaddu dadka la ballamay la helo in order to be a leader waa inaynu noqonnaa shakhsi wakiilashada hura xafiiska iyo xarunta aan joogay xaafaddii hooyaday ma intaan qufusho furaa la tegay tusaale ahaan hosbitaal haddaanan u maareeyihiisa ahay jigjiga ku yaala hargeysaanba muqdisho anba adsaaba la iiga yeedhoon intaan sii qufusho iska tago hooyadii uurka lahayd la keeno shilkii gaadhiya dhacay dhaawiciisii la keeno tolkaygii isa soo dakhtakhray anba dhagaxaan isla dhacay anba isa soo xabadeeyey dhaawiciisii la keeno halkaa maxaa ka dhici furii baa lala maqan yahay ma noqonaysa ya waan isbaanisooma shakhsi kasta oy maamul xumada naftu kaga baxdo automatically I will become a criminal dambiilana automatically because nintiisii gabay unbaana marka we have to think wakiilashada waa inaan hurnaa ta kale waa inaynu noqonnaa shakhsi karti leh xirfad leh hal abuur leh ay ka go'an tahay inaynu ummadda anfaco waa inay naga go'naataa ku dhaqanka cadaaladda hebel la saaxiib hebel ha cadhoode
That is negative competition. Waan isgaranaysaa waa inaad xushmad iyo akbo siisaa qadarin ummadda aad xilka u hayso. waxa kaloo loo baahan yahay waa inaynu noqonnaa shakhsi horu socod leh oon dib u socod ahayn. waa inaynu noqonnaa shakhsi cabsi ka madax bannaan markaad shaqaynayso free. ka saxanina waa saxan yahay, ka khaldanina waa khaldan yahay. beentu way tol badan tahay. inta badan arrin ay 5-4 qof u socoto haddaad aragto waa been, waa xatooyo, waa wuxuuna xaq u lahayn wuxuu raadinaya. weli bangi baan lacag ka soo qaadanayaa kaale igala hadal miyaad maqashay? ma jirto. hadday kuu taalana aduun baa doonan, haddayna kuu oolina tugi maysa. maxaa xafiisyada 9 oday loo soo kaxaysta? qofku isagaaba iman kare waxaanu xaq leeyahay baa xafiiska igaga xidhan hadduu leeyahay tanina ummadda ma fadhiyo soo ma. laakiin waxaanad xaq u lahayn markaad la raadinayo iyo dad badan la soo kaxaysta. you have to think. marka hogaamiyaha wanaagsani waa inuu noqdaa shakhsi ku dhaqma cadaaladda, waa inuu noqonnaa shakhsi horu socod leh, waa inuu noqonnaa shakhsi cabsi ka madax bannaan, waa inaynu noqonnaa shakhsi aamin ah, waa inaynu noqonnaa shakhsi tusaale ah oo ku dayasho mudan, waa inaynu noqonnaa garsoore wanaagsan, waa inaynu noqonnaa shakhsi aqoon buuxda u leh shaqada uu gacanta ku hayo oo xirfadeedii leh. waa inaan noqonnaa qof nadaafadiisa ilaaliya. soomaalidu intay kugu aragtay kugu sheegtay. haddaad ilaadahay ilow, haddaad laangare tahay laangare, haddaad gacankan tahay kan. markaad soo agsugsato haddaad shabeel urto kii uraya inoo yeedhaya ina mariyo. marka you have to be clean. you have to be clean. waa inaad noqdaa. waxa kaloo jirta waa inaynu noqonnaa shakhsi hubsada waxa aanu aqoon u lahayn. waxaanad aqoon u lahayn ha isku dayin inaad tu kasta ka jawaabto, laakiin waa inaad tab iyo xeelad ku adeegsataa cidda xirfaddaa leh baahidan iyo baylahadan siday u xallin lahayd. maanta ma noqon kartid waardiye, maanta ma noqon kartid secretary, maanta ma noqon kartid hogaami, maanta ma noqon kartid agaasin, maanta ma noqon kartid khabiir, dhakhtar, injineer. hal mar waxaanoo dhan ma wada noqon kartid soo ma hadde. laakiin maxaa lagaaga baahan yahay inaad dadkaasoo dhan isku qabatidood isku haysido